السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkeena xiga ee kanaalka Waaye Arag Academy magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Xuseen waxaan halkan idinku soo gudbiyaa muuqaalo ku saabsan luqadda Ingiriiska haddaba casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay Somali leaders agree to hold elections within 60 days hogaamiyaasha Soomaalida oo ku heshiiyay ama isku raacay in la qabto doorasho laguna qabto within 60 days inta lagu guda jiro 60 maalin balse inta aanan u guda gelin sharaxaadda casharka waxaan rabaa inaan ku sheego laba qodobka koobaad oo ah casharkani ma ahan waqti xaadirkan waa maalmo hore bishii la soo dhaafayay way heshiiska ay gaarayeen madaxda dalka iyo dawladda Soomaaliya heshiis ay gaareen in lagu qabto doorasho waqtigeed in lagu qabto ayuu ahaa marka muhiimadeenu ma ahan siyaasad iyo waxyaabahaas inaan galno waa in aynu ka faa'iideysano ereyada ku jira ama eray siyaasadeedka inaan faa'iideysano qodobka labaadna waxa uu yahay buugaagta ku saabsan dhanka Waaye Arag waxaa jira buugaag aan ka diyaariyo casharada aan soo geliyo halkan hadda waxaa diyaarsan buugwan waxa uuna yahay sheekooyinka ku jira kanaalka oo idil ayaan buug ka sameeyay waana buugwan qofkii doonaya waa uu helaya waa uu diyaar qodobka kale waxa waaye buug kale buugtuuga ah isna waxa uu ku saabsanaan doonaa hadalkan iyo hadallada la halmaala ee ku jira kanaalka sida Chakma Muwado Bill Gates Malala Yusuf oo casharo aad u fara badan aan ka soo diyaariyay aan soo geliyay kanaalkan iyo waxyaabaha aadka u xiisaha badan ee ku jira kanaalka ayaan iyana buug labaad ka soo sameyn doonaa insha Allah buug saddexaad wuxuu noqon doonaa vocabularies buug afraadna wuxuu noqon doonaa hadii bakaraal noqdo conversations ama wada sheekooyin haddaba inta adigoo madaxa ku haya ku soo dhaw casharkeena maanta Somali leaders hogaamiyaasha Soomaalida agree ayaa waxa ay isku raaceen to hold in la qabto elections doorashooyin within inta lagu guda jiro 60 days 60 maalin the United Nations top envoy ergeyga ugu sareeya qaramada midoobay United Nations waa qaramada midoobay top waa ugu sareeya envoy na waa ergey طبعا waa eray cusub oo eray siyaasadeedka oo mar walba media aad ka maqasho waa envoy waxa la yiraahdaa ergeyga ugu sareeya ee qaramada midoobay in Soomaaliya waa ergeyga Soomaaliya ee qaramada midoobay ugu sareeya has welcomed ayaa soo dhaweeyay the decision go'aanka Richard lagu gaaray ama ay gaareen by Somali leaders hogaamiyaasha Soomaalida go'aankaas oo ah to hold in la qabto presidential and parliamentary elections doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne presidential waa madaxweyne and parliamentary iyo mid baarlamaan electionsna waa doorasho marka doorasho baarlamaanka in la doorto madaxweynihii in la doorto ayaa lagu heshiiyay waxaan lagu heshiiyay within inta lagu guda jiro 2 months 2 bilood 2 bil gudahood waa in lagu doortaa baarlamaan iyo madaxweyne ayuu ahaa heshiiska ay ku heshiiyeen Somali leaders and this was followed by tanna waxaa la raacsiiyay labadan bil 4 days afar maalmood afartaas maalin oo ah of intense negotiations wada xaajoodyo xoog leh in Muqdisho ee magaalada Muqdisho lagu qabanayo wada xaajoodyo aad u xoogan oo xasaasi ah oo afar maalin soconaya ayaa la raacsiiyay Somalia's government dawladda Soomaaliya has announced ayaa ku dhawaaqday that delayed elections in doorashooyinkii dib u dhacay delayed waa dib loo dhigay would be held lagu qaban doono within 60 days and 60 maalin gudahood following months bilaha soo socdo according to the deal markii loo eego heshiiska deal waa heshiiska according waa loo eego Somalia will have waxa ay yeelan doontaa a new president madaxweyne cusub and a new speaker of parliament iyo afayeen baarlamaan oo cusub speaker waa afayeen midka baarlamaanka u hadlaya waxa la yiraahdaa speaker marka heshiiskaas markii dadka aragtida leh ee waxgaradka ah markii ay fiiriyeen waxa soo baxday in Soomaaliya madaxweyne cusub ay yeelan doonto oo midka hadda talada haya uusan soo laaban doonin marka a new speaker of parliament afayeen cusub ee baarlamaanka in August bisha August ay yeelan doonto
Prime Minister Roble, Ra'iisul Wasaare Roble, 5 regional leaders iyo 5 hogaamiyeed ee gobolada. Regional waa goboleedka, maamul goboleedka ayaa waxaa la yidhahdaa regional leaders, hogaamiyaasha hogaamiye goboleedka. And the mayor of Mogadishu iyo duqa Muqdisho ayaa inked the deal hoosta ka xariiqay heshiiska ah in doorashada lagu qaban doono 60 maalin. Inked waa hoosta ka xariiqay in shay ama contract page-ka xiga isna waxa uu leeyahay the signatories of the deal, dadkii saxiixay heshiiska. Signatories waa saxiixayaasha heshiiska waxa ay yihiin. Halkan waxaan kusoo qaadan doonaa dadkii heshiiska saxiixay. waxaa ugu horeeya the Somali Prime Minister, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mohamed Hussein Roble. Puntland President, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. South West President, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Mohamed Laftagreen. Galmudug President, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Jubaland President, madaxweynaha Jubaland Axmed Mohamed Islaam Axmed Madoobe. Hirshabelle President, madaxweynaha Hirshabelle Ali Abdullaahi Hussein Goodlawe. And the mayor of Mogadishu iyo duqa magaalada Muqdisho Umar Mahmoud Mohamed Filish. Intaas ayaa saxiixay heshiiskii lagu gaaray in doorasho lagu qabto 60 maalin. Page-ka xiga the closing ceremony, xiritaankii xafladda. Ceremony waa xaflad. Was attended by waxaa soo xaadiray Somali President Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. waxaa kaloo soo xaadiray speakers of the two houses of parliament, afhayeenka labada aqal ee baarlamaanka. Speakers afhayeenada of the two houses ee labada aqal of the parliament ee baarlamaanka. waxaa kaloo soo xaadiray two former presidents, labadii madaxweyne ee hore. Former waa hore. waxaa kaloo soo xaadiray members of the parliament, xubnaha baarlamaanka. waxaa kaloo soo xaadiray members of the union of the candidates, xubnaha midowga musharaxiinta. Union waa midow, candidatesna waa musharaxiin. waxaa kaloo soo xaadiray international community, beesha caalamka. Speaking at the signing ceremony, hadalkii marka saxiixitaankii xafladda, Somali Prime Minister, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Roble said ayaa yiri that his government in dowladiisu is committed ay ku howlan tahay to implementing sida ay u fulinayso the agreement heshiiska la gaaray sida ay u fulin lahayd in ay ku howlan tahay ayuu sheegay Ra'iisul Wasaare Roble. wahagaag xafladdu wali waa ay socotaa. Former President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hore. erga former waa hore. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed also gave ayaa sidoo kale waxa uu bixiyay ama uu siiyay speech, hadal ayuu xafladda siiyay ama ka bixiyay. At the closing ceremony, xafladda xiritaankeedii markii xafladda la soo xirayay ayuu hadal yiri. wuxuuna yiri Sheikh Sharif added, Sheikh Sharif ayaa wuxuu ku daray hadalkiisa that members of his union in xubnaha midowgiisu wanted ay doonayeen forgiveness, cafis among Somali leaders, hogaamiyaasha Soomaalida dhexdooda inay iscafiyaan ayuu doonayay. He argued, wuxuu ku booriyay Somali leaders, hogaamiyaasha Soomaalida to forgive inay cafiyaan one another, midka kale inay iscafiyaan. hadalkan ayuuna yiri on behalf of union of candidates. erega on behalf haddii aan waxyar isla fahamno waa markii dad magacooda aad meel ku joogto oo adigu aad matalayso oo hadalka aad tiri dadkaas in ay dhaheen ay la mid tahay. marka on behalf of union of candidates, anigoo matalaya ayuu yiri midowga musharaxiinta, I suggest waxaan soo jeedinayaa forgiveness, cafis ayaan soo jeedinayaa. President Farmaajo, madaxweyne Farmaajo ayaa accepted, aqbalay the offer of forgiveness, cafiska uu bixiyay cafiska uga yimid ama ay ugu baaqeen ama ay u fidiyaan aan dhahe from his predecessor, dadkii shaqada uga horeeyay. erga predecessor isna waxaa la yiraahdaa madaxweyne markii aad tahay madaxweynihii shaqada kaaga horeeyay waa it's your predecessor. predecessor marka waxaa la yiraahdaa qofka talada kaaga horeeyay. and told, wuxuuna sheegay Farmaajo that he also forgive, in isna sidoo kale uu cafinayo ama he also forgave uu isna sidoo kale uu cafiyay other leaders, hogaamiyaasha kale. waxaan isla soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena maanta. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. haddii uusan kanaalka subscribe ku saarnayn waxaan ka codsanay inaad saarato
cashirkana aad like garayso aad baad u mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaan noo balana muuqaalkan muuqaalkiisa xiga inta laga gaarayo isii faraxsanaaw